Dhagaxaanta Ababil oo Quraanka Kariimka ah lagu sheegay Sacuudiguna uu doonay inuu malaayiin dollar siisto. Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada channelka Kunelna YouTube. Fadlan markuu ugu horreysana soo booqatay subscribe ku jikan bareerkana taawo si aad noogu soo biirtid muuqaaladeena ay ku soo gaadhaan. Maalinnimadii shalay ahayd waddanka Sacuudi Arabia ayaa waxa uu shaaciyay inuu iibin doono dhagaxaantii Quraanka Kariimka ah lagu sheegay ee Ababil, kuwaas oo xilligii gaaladu weerarka ku hayeen Baytullaahi Xaraamka Ilaahay ugu soo dhiibay shimbiro. Iyada oo lagu sheegay Suuratul Fiil ayay dhagaxaantii weli qaar ka mid ah ay baaqi ku yihiin dhulka, kuwaas oo lagu hayay laguna ilaalinaya meel musxaf ah oo la dhigo alaabaha taariikhiga iyo kuwa qadiimigaaba. Dowladda iyo saraakiil ku dhow ayaa waxay daneynayaan oo ay doonayaan inay milyuumaad siistaan dhagaxaantan Quraanka Kariimka ah lagu sheegay ee Ababil. Sacuudiga oo gorgortan ugu jira siduu u iibin lahaa dhagaxaantan ugana macaashi lahaa lacag aad u tiro badan. Dhagaxaantaas ayaa intooda badan ah kuwo isku eg, iskuna miisaan ah, midabkooduna uu yahay madow. Dhagaxaantan oo lagu hayo musxafka lagu keydiyo waxyaabihii hore iyo dhacdooyinkii hore ee Islaamka si ay ugu soo booqdaan dadku. Dadka qaar ayaa ku tilmaamay in waddanka Sacuudigu baabi'inayo qaybo ka mid ah taariikhda Islaamka, maadaama ay gadayaan waxyaabihii muujinayay taariikhda Islaamka iyo dhacdooyinkii soo maray. Hal xabo dhagaxa Ababil ah ayay taariikhyahanadu doonayaan hadda inay kala baxaan ku dhawaad lacag gaadhaysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka. Sidoo kale, dhagaxa Ababil ayuu miisaankiisu yahay 131 garaam, kuwaas oo ay la mid yihiin ama isku miisaan yihiin kuwiisa kale dhagaxaanta la hayo. Lacagta 4 milyan ee dollar ee doonayaan in taariikhyahanadu lagaga iibiyo dhagaxa Ababil ayuu ku gacan sayray Sacuudigu inaanu kaga iibinayn, kaasoo raba lacagtan ka badan oo milyuumaad gaadhaysa oo ciddii sidato kaliya uu kaga iibinayo dhagaxaanta. Balse taariikhyahanada ayaa daneynaya dhagaxaas iyo xogta ku jira inay baadhaan, laakiin Sacuudiga ayaa doonaya inuu dhagaxaanta ku iibiyo malaayiin dollar isagoo gacanta ku haya dhagaxaanta badanaa qaar ka mid ah. Maanta muuqaalkeena intaas ayuu noogu eegyahay. Haddaad ka heshay like saar, siina share garee siduu u gaadho saaxiibadaada kale.